hal abuurkii hibada u lahaa humaagyada maansada nooc walba oo ay tahay dhakhtarkii jacaylka abwaan maxamed cali kaariye waxa uu dunida ku soo biiray xilli ku aadan 3 sano ka hor dagaalkii labaad ee dunida waxa uu ku dhashay marta webi baay oo ka tirsan gobolka Nagob ee dhulka Soomaali galbeed abwaanku waxa uu ku barbaaray deegaankii uu ku dhashay ilaa quraanka halkaasi uu ku dhameeyay aabihii waxa uu ahaa qof aqoon wanaagsan diinta u leh maadaama uu ka soo jeeday ehel diimeed abwaan maxamed cali kaariye suugaan curintiisu waxa ay bilaabatay markii uu bilaabay inuu raac geela aabihii waxa la sheegaa suugaantii ugu horeysay uu abwaanku curiyay inay ahayd mid uu ku cabiriyay noloshiisa looneed ee baadiyaha waxa uu yiri abwaanku magaalada Jowhar ee Lajantiyo Jabuuti jidkeen u maraa abwaan maxamed cali kaariye waxa uu soo wareegay muddo kadib magaalada Qabri Dahar halkaas ayuuna ku bartay asaasiga waxbarashada maadiga sida xisaabaadka kadib halka waxa uu ka furtay ganacsi yar maxamed cali kaariye waxa uu markii dambe u soo wareegay magaalada Hargeysa hilaadii 1960kii magaalada Hargeysa waxa ka dhisnaa kooxdii walaalaha oo xilliga fankoodu meel sare mariyay isla xilliga waxa ay ku aadaneed xornimadii guumeystihii Ingiriiska kooxduna waxa ay diyaarinaysay heeso riwaayado iyo gabayo lagu weyneynayay maalinta maxamed cali kaariye si wanaagsan looma garanaynin marka laga reebo bulshadii uu ku dhex koray iyo dad kale oo yaraa balse abwaanku waxa si weyn loo bartay kadib aasaaskii kooxda xoogga dalka kadib xornimadii iyo midowgii gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed waxa dhashay kacdoon wadaniyadeed oo diiran waxaana la curiyay suugaan kala duwan waxaana xoogeysatay doorkii qofka fanaanka ama hal abuuraha leh oo ku lahaa bulshada dhexdeeda abwaan maxamed cali kaariye waxa uu ku biiray kooxdii fanaaniinta ee Waabari kadib isku shaandhayn lagu sameeyay kooxihii fanka ee ciidanka Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa abwaan kaariye waxa uu ahaa qofkii bixiyay magaca Waabari waxa uu ka qaatay door muhiima horumarkii kooxdu ay sameysay waxa uu muddo dheer ah agaasimaha wax soo saarka hobolada Waabari oo shaqadiisu ahayd ansixinta guud ahaan suugaantii ay soo saari jirtay kooxdu maxamed cali kaariye dhakhtarkii jacaylka magaca dhakhtarka jacaylka ayaa lagu laday magaciisii ahaa maxamed cali kaariye kadib markii uu jacayl daran oo aad u shacbaxay uu qaaday fanaanada Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal taasi oo fanku isaga kaga soo horeeyay Khadiija Fooday Nuur waxay ii sheegtay ayuu yiri Cumar Serbiya sida uu ku tilmaamay buugiisa fan iyo fanaan in xilliga kooxda xoogga dalka ay ka tirsaneed ay koox fanaaniin oo ay ku jirto ka dhaqaaqeen magaalada Muqdisho oo riwaayadii ay ka mid tahay wad iyo wacad riwaayadana waxa curiyay Cismaan Askari iyo riwaayad kale oo biifaf la oran jiray xilligaas ay u qaadeen magaalada Boorama waxaana ay ku beegneed 1970kii ayaga oo jooga magaalada Boorama waxa loo keenay cajalada ay ku duuban yihiin heesahaas oo ay qaadeen fanaaniin kala duwan heesihii la dhageysanayay ee laga shiday cajaladii loo keenay waxa ka mid ahayd heesta Gooriya Ayaan markii la daaray codka hal mar waxa la arkay abwaanka oo kolba qof weydiinayo codka cudoon ee dhagihiisa ku soo dhacayo dareenka waxa ka dhashay heesa taxana oo markii dambe kula baxay magaca dhakhtarka jacaylka heesta dad Hargeysa soo maray heestani waxa ay bilow u ahayd heesa silsilad jacayl oo kaariye ka alifay Shankaroon Axmed Sagal kana waramaysa joogitaankiisa kaariye ee magaalada Boorama iyo mahiigaanka jacayl ee halka ku helay sababta u ahayd heesta iyo codkii beertaabad kala ahaa ee Shankaroon sidoo kale waxay ka hadlaysaa heestu safarkii isaga iyo kooxdiisii ay ku soo mareen Hargeysa heesta waxa qaaday isla kolkaana la xameeyay Axmed Cali Cigaal waxay noqotay wax iska caadi ah in abwaan maxamed cali kaariye uu heesa iyo in ka badan ka alifa dareenka jacayl ee sii xoogeysanayay ee uu qaaday fanaanada Shankaroon hakala mug weynaadaan heesaha uu ka alifay qisadaas abwaanku waxa uu ka qaaday tiro heesa ah oo ay ugu horeysay heesta dhab Hargeysa soo maray ma haayo muuqaan la kala garan iyo heesta hurdo kama bogto 1974 laba sano uun kadib markii uu kaariye ku baroordiiqay heestii ma haaye ee uu Xasan Aadan ku luuqeeyay waxa uu nasiibku kaariye u keenay Shankaroon oo madax bannaan ogolna inay guursato sheeko xiisa badan ayay noqotay inuu hirgalay jacaylkii uu kaariye muddada badan la gorongolay abwaanku waxa uu sidoo kale alifay riwaayada ay adag tahay inaan halkan ku soo koobno balse waxaan ka samayn doonaa muuqaalo kala bedelan maalmaha soo aadan abwaanku kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu alifay heesta Soomaaliya inta garo iyo gabayo uu kula hadlayay bulshada Soomaaliyeed kuna hogal tusaaleynayay ahmiyadda nabadda iyo barwaaqada ay dawladnimadu leedahay abwaanku waxa uu ifka kaga tagay eebaha u naxariistay tiro caruur ah waxa uu guursaday abwaanku intuu noolaa 7 dumar ah rabbi jannadiisa ha ku arsaaqay